malaay kaloo waxaa jira oo weeliye seenab la leeyahay asigana kiiladiisi $6 $7 la gadaa haddaan maanta qiimo oo qaali aan ka soo bixino oo qiimo yar aan gan anaga dhibkeena waa halkan aynu ku sugannahay waa kawaanka Xamarweyne ee malaayga lagu iibiyo waxaa ka jira malaay la'aan baahsan oo ay wajahayaan ganacsatada sidoo kale waxaan jirin oo halkan dadka marka ka ganacsada malaayga ay sheegayaan in malaayga uu xilligii marka la heli lahaa aan lagu jirin maadaama badxiran lagu jiro oo xagaaya ay ka jiraan bilooyinka soo aadan ayay rajo ka muujinayaan ganacsatada kuwa oo sheegaya in bad furan uu dhici doono oo laga bixi doono xagaayahan markaasna la heli doono malaay oo marka noocyada kala duwan gaar ahaan kuwa inta badan la isticmaala sida yumbiga iyo jeedalka sida sheegeen oo xilliyadaas inta badan soo dhaco malaay kale oo soo dhaca xilligan oo kale ayaa jira balse malaayga inta badan dadka ay isticmaalaan oo ganacsatada halkan ay sheegeen inay dadka customerkooda ay isticmaalaan ayaa xilligan jirin waxaana ay sheegayaan sidoo kaleeto in ay doonayaan kaydad malaay oo ay yeeshaan oo ay ka caawiyaan hay'adaha dawladda gaar ahaan kuwa ku shaqada leh arrimaha badda iyo sidoo kale kalluunka oo kale si ay caqabadaha malaay la'aanta xilliyadan oo kale ay uga gudbaan bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo magacayga Isxaaq Xeydar Mayow oo jooga degmada Xamarweyne gaar ahaan kabaanka malaayga ee magaalada Muqdisho maasha Allah niyahow bariyahan malaaygi aad iyo aad u yar yahay maxaa dhacday xilligii anaga waxaan ku jirnaa wali bad xireenkii oo malaaygi la waynayay xilligii xagayga ahaa maxaa dhacday magaalada beeraha gu'i deeray soo go'aan anaga saasoo kale anagana gu'i deeran leenahay hadda xilligii daartii gu'i hore aan soo cunay hadda xilli waxaan ku jirnaa xagay waa xilligii bad wax la'aanta waay alxamdulillah doomankiina waa sidooday u yaalaan laakiin ma shaqeeyaan badda xoogaa shaqo xumo ka dhacday malaaygi magaalada waa ku yar yahay kabaankii waa ku yar yahay mashruucii oo malaayga cuni jireen sida malaayga aad iyo aad u beegsadaan sida yumbiga oo kale sida jeedarka oo kale waa labada malaay oo dadka aad iyo aad u cunaan iyo daambiriga oo kale malaaygaasna hadda suuqa waa ku yar yahay ebel kiilada waxaa la geey jiray markuu jeedarka oo buuxay kiilada $2 $1 iyo baraa la geey jiray maantana kiilada $5 oo maraa jeedarka yumbahana kiiladiisa asigana waxaa la geey jiray $4 waa malaay uu qaalsan yumbaha waay kiilo $4 la geey jiray maanta $10 ilaa $12 oo maraa waa yumbaha rasmiga ah malaay kaloo waxaa jira oo weeliye seenab la leeyahay asigana kiiladiisi $6 $7 la gadaa alxamdulillah taasna waxaa kalifay kabaankiyo oo malaaygi oo ku yar yahay iyo badiyo malaaygi laga haynin wallaahi macaamiish waxaan ku xalinaa xilligan oo kale malaaya waxaan ugu imaado ceel macaan oo ka imaada malaayga barfay ku soo qaadayaan way keenayaan hoteeladii ilaa iyo muqaayooyinka iyo customerkii oo kabaanka joogay intaasaan macnaha aan isku celcelis waxa la hayo ilaa anagu wax keed ma qabna anaga haddaan lacag keed aan lahaa lahayn anaga macnaha malaay darida macnaha ma aha lahayn mar walba waa aarinkeena joogto aalaay laakiin abaarta waxaan soo isgelinaa waxa waaye anagu keed malaay maanta malaayna oo dib aan kala soo baxno keed la'aanta wax walba keenay wallaahi malaayga waxaa cunaan ilaa ay gobolada la geeyaa malaayga aad iyo aad malaayga mujtamaca waxyaabaha aad iyo cunaan hilibka iyo malaayga ka jecel yihiin dadka macnaha cholesterolka qabo iyo dadka dhiig karka iyo waxa iska qabo malaayga aad iyo aad u isticmaalaan alxamdulillah wallaahi waa malaaygi baadiyaha dadka joogaan waa loo geeyaa dadka bariga joogaan waa loo geeyaa malaaygeena malaay la dhoofiyo oo oo maasha Allah laakiin sana asigii hadda wixii faraha lagu haynin dadkii baadiyo xilliga oo waxay qaataan wili oo malaayga uu buuxo ay qaataan hadda keedaan lahaa leene eegan way cun lahaayeen anagana waa cun lahayn laakiin iyaga hadda xilligan waxa u meelaa malaay oo xillidan oo kale hadda xilligan oo kale malaayga waxaana lagu keenaa 2 hoome 3 hoome aan soo gasho waxdii oo malaayga lagu keeno waxay kala imaadaan jaziiro ceel macaan ilaa ay warshiq dhulkaas ka imaadaan baawurta ay ka imaadaan ayagana soo gaarsiyo xilligan malaayga la isku celiyo malaaygaas waay mooyay badeena hadda anaga wax malaay oo markaas ka imaado waa in yaraa ka imaato oo 6 saac ay soo dhadhacaan waa wax yar aan waxba suuq ku tareenin wallaahi barnaamijkan aniga waxa lagu heli karaa barnaamijkan way inay avalanche horta anaga dawladda keed malaay noo sameeysaa maxaa dhacday xilliga malaayga oo soo fataho malaayga waxay tagay in la daadiyo maadaama keed aan lahayn in la daadiyo dawladii hore anaga oo wadanka shaqeynayay keed la hajireen warshadooyin la hajireen waxa la iskiga moo jiray laakiin hadda anu keed ma qabno markab oo malaay gaado macnaha ku keedina ma haysano qalabkii macnaha anaga oo hadda aan malaay gaadeenin qalab horumarsan ma aha waa qalab oo macnaha afaafkan hore malaay ka gaato
laakiin qalab oo bannaanka sii aado oo annaga maanta aan malaay ku gaadeen maba haysanaba laakiin dawladda aniga weli waxaan kula baaqaa inay noo samayso keed oo malaay aan ku keedsano oo markii sanadkan abaartaan oo kale ay nagu dhacdo aan ku baxsano anaga keed yaryar way jiraan laakiin keed oo macnaha ku filan maaha maxaa dhacday waa keed bil ataa aan dhammayn wax la isticmaalayo bil waxaan dhammaynaa la isticmaalayo kadib malaayga isbedelaayo wax suuqna soo geli karo maaha ama wixii macnaha waa baaba'aya isla markii noocaas waa laakiin keed oo maanta oo sanad malaay celinayo ama 2 sano celinayo anagu ma haysano cimilada maanta lagu jiro horta waa cimilad malaay la'aan ama malaay darra ah waxaan u wacan xilli horta lagu jiro badxireenka markii la gaarin walba nafsidiisa la baqaayaa kalluun yarna waa soo ziyaadaa waa soo wajahmadaa meeshaan suuqa horta suuq international oo caasimadda ku yaala waaye sidaasay tahay wax uma deeqo gobol ilaa iyo gobol malaay laga cunaa ilaa iyo gobol malaay laga cunaa laakiin shacbiga ku nool shacbiga caasimadda ku nool macnaha sidaas uma jecla xilliga oo malaay markuu soo buuxsamo kiilo $2 oo tago markaas shacab ku nool caasimadda aragnaa laakiin hadda cimilad ahaantiisa waxaan maraynaa kiilo malaay $5 $6 maasha allah sixirka weli sidiisa u maraa xoogaa xagaagii hadda gabagaba haddana dabeelaa noogu soo darsantay taas ilaahay mahadiisu alxamdulillah hadda laakiin bishan ilaa iyo sagaalaadka laga gaarayo waxaan rajaynaynaa qiimihiis inuu saan hoos ugu soo dhaco taasoo ku wacan hadda doomanka wax badan ma keenaan doomanka shalay intaasoo tan keeni jireen maanta 3 xabo 4 xabo ay keenooyin hadda jaadarka taa sixirkiisoo wili maraya $6 ilaa iyo 5 iyo bara kiilada la gadooyaa yuumbin abasoo sheegin 10 ilaa iyo 9 oo sii socdaan taas waxaa ku wacan xoogaa malaay yariyaa jirto xagaagiyaan wili ku jirnaa laakiin hadda waxaan rajaynaynaa xoogaa gabagaba inuu noo noqdo insha allah maasha allah malaayiga qaali ee shacabkiina bees yaray ku rabaan anaga markaan kiilo $7 aan ka bixino ayaga kiilo 7 6 iyo bar $6 ay ku rabaan marka lafihii maan hoos u sii dhimaynaa waa hadda bishaan gudaheeda taa 3 beri 4 beri kama shaqaynin taasoo ku wacan malaayiga qaali mana isbixinaayo wixii guriyaan ka raadinoonaa haddaan maanta qiimo oo qaali aan ka soo bixino oo qiimo yar aan gan anaga dhibkeena waa marka saasaa xoogaa shaqo yari ee nagu timaaday ceeb kale lama qabna shacabkiina soo wacane suuqaan ugu hagaajinoona wixii u heli karno kastamar badanaa igu xiran sida hoteelada oo kale xaafadaha maalinta ay soo wacaan malaay suuqaan ugu raadin haddaan aniga haay anigaaba xalina haddaan haynin suuqaan ugu gadaa saasaan iskaga xaliyaa maasha allah marka sidaasoo wax u jira xoogaa yaraashadaasaana hayso ceeb kalena ma qabna ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu hoos beecina noogu soo jibiyo insha allah maasha allah culays maku qabna alxamdulillah waa soo marnay wax badanaan soo marnay weliba 3 bil xagaayaan haysanaa 3 bilna isib dabeeshoo la dhahayaa jirto ayadana sida oo kale malaay yari jirto hadda 3daas bil oo isibka iyo 3dan bil xagaaga fiican ayuu nooc qabiil malaayaa socdo laakiin anaga malaayga aan ka ganacsano yuumbi iyo jeedar waa yuumbi iyo jeedarna suuq aad iyo aad ugu yaryahay laakiin malaayaasha kale reer macbileeska waa la helaa kuwa reer xamarta cunaan oo kale ciidaha kale isku cunaan oo kale suuq waa iska buuxaa woo yaalaa laakiin anaga kasta marka aan leenahay macaamiishana yuumbi iyo jeedar ayna u xiriin yuumbi iyo jeedar haddii hayna caado waan ka ganacsan karnaa hadduu qiimihiisa oo nagu yaryahay laakiin qiimihii qaali hadduu noo yahay ganacsigeena hoos baa xoogaa yar u imaanaa saasaan diidaynaa insha allah dhib mal haddana waan sii rajaynaynaa inuu noo soo raqiiso hadduu ilaahay yiraahdo soo dhawaada marka iyadoo malaay la'aan baahsan ay ka jirto suuqan ayaa haddana waxaa jira dad yar oo u soo dukaamaysi taga kuwaasi oo ka soo doontay malaayaasha qaar oo laga helayo haatan halkan waxaana inta badan ay ganacsatadu sheegayaan in malaay la'aan darteed ay la haawanayaan miisaskooda taasi oo sabab u noqotay badxiranka oo ka jira waqtigan badda taasina ay malaay la'aan keentay سيد حافظ كان هلك قال قناعسي بالشو